halkani waa magaalada Baro ee xarunta gobolka Togdheer waana caasimadda labaad ee Jamhuuriyadda Qaranka Soomaaliland waxa muddooyinkii u dambeeyay deegaanada iyo sidoo kale gobolada Soomaaliland ka hortay raxmaadka eebe hadda mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Baro ayaa qaar gabi ahaanba ka gaabiyay shaqooyinka ay ummadda dooratay u hayeen ha ahaata maayir iyo sidoo kale xildhibaanada degmada Baro ayaa qaar ku shaqeynaya musuqmaasuq waxayna soo tafaxaateen tartan ugu jiraan boobka hantida ummadda maayirka iyo sidoo kale xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Baro ayaa u muuqda qaar aan danaynin horumarka dhinacyadiisa kala duwan taasoo ku sababtay magaalada Baro dib u dhac baaxad leh haddaba hooyinka ku dhaqan xaafadda shacabka ee magaalada Baro oo ah kambalka xarunta looga taliyo gobolkani Togdheer ayaa cabashooyin baan ka muujiyay wax qabad la'aanta dawladda hoose ee degmada Baro dhan kale wadadan oo halbowle u ah isla mar ahaantaana isku xidha xarunta maamulka gobolka Togdheer wasaaradaha iyo sidoo kale maxkamadda degmada Baro ayaa wada biyo fadhiisin ah taasoo ay ka dhalan karaan xanuunada noocyadiisa kala duwan kuwaasoo halis ku ah dadweynaha ka agdhow meeshani haddaba hooyooyinka oo ka cabanaya wadadan biyo fadhiisinka ah waxa ka mid ah hadaladoodii sida tan nadaafadda xaafaddu walahi aad buu liidataa si ahaan marka halkan eegtay biyo baa fadhiya waqtigii baa la keenaya qashinkii baa la meheradaas keenay maqaxyaha keenaya haas baa keenaysa xaafadaha keenaya wixii dadna biyo marka farsaaradu way isla qulmaysaa biyo waa kuwaas oo madoobaadana waa kan salo wada aragta nadaafad darro wadadii oo goday wixii loo doortayna ay ku ballan qaadeen maalintii loo yeecay ay ku ballan qaadeen waxyaabaha maanta dayacooda muuqdo ay ka mid ahaa ama dawam kaba ka aha guud caafimaadka ee xaafadda shacabku waxay ku jirtaa aad serious bay ku jirtaa waxa weeye biyahaas iyo xashiishkaas ayaa nafta isugu kaaya keenay waxaanaanu nahay golihii gobolkii baanu agtiisa deganahay wax laaliyo wuxuu gobolka iyo wasaaradda caafimaadka ta waxbarashada maxkamadaha wasaaradda maaliyadda wasaarad wal oo tiirka dawladda iba halkan bay ka iftinkeedu ka baxaa mana eegto wax laale iyo waxay noo tartaana ma jirto golaha degaankana golo jiraba ma aha waa golaha iyagu dhibtooda uun ka shaqeeya iyo saysigooda waxaanu ka codsanaynaa fadlan wasaaradda iyo maxkamaddaba gaadiidkooda halkaa maraya inay u sameeyaan si ay ugu maro gawaadhidu ay u galaan inay wadada u samaystaan annagana ay dhibta nagu haysiyo dirxigu nooga bo'o nahay annagu xaafadan gobolka bartamihiisa ah ee magaalada dhexdeedii waxa wasaaradii waxa gobolka iyo maxaan ku yiraahdaa dawladda oo dhammaan anaga jaarna la taha xaafada kalena lama qabto anaga dhibaatada haysata waxa shacabku xashiish soo tuuro bartan baad loo keenaa waxaan kugu yiri biyahaas nagu madoobaaday aad arkaysaan waad aragtaan waxa meesha yaala dirxiga sidaa u muriiqiyeen guriyigu noogu soo galaya gaadiidkii baa intay ka soo baydhaan dirxiga iyo dawladda intay ka soo baydhay ayaa anaga nagu soo baydha naloomaba dhigi jirinba golaha deegaanka hortii naloomaba dhiginba xashiish ka horeeyay iyaga ma garanayno maanaan arag berigii la doortay baa noogu dambeysay aragtidooda Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga Soomaali Cable Burco.